السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى الله السلام. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وما سنتين دمانتين انت نيس وتأسيسي خير الله ينسي. الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله طهور إن شاء الله إن شاء الله. ولا ليال walaalayaal dadka halkaan uga fahaya walaalahay beesha isaaq fadlan ha u gafina. yani ceeb walaalahay isaaq ay soo dhaweeyeen, waa ay sharfeen, waa ay karaameeyeen. wax dhibaato ah ilaahay baa qadaray, dhibkan waa dhacay. dadkuna waa ehel, odayaal bay leeyihiin, guurti bay leeyihiin, dhaqan bay leeyihiin, culum bay leeyihiin. wax magarad baa waxaan ii geystay, dhibka ii geystay. waxaan waxay ku tusinaysaa dulmiga ka jira Soomaali weyn, meel walba ka jira, isku mid ay tahay. marka anigu walaalahay beesha isaaq waa dad sharaf leh, waa dad karaamo leh, dad goba weeyaan, dad cisala weeyaan. waan jeclahay, waa ehelkay, waa sokeeyahay, waa dhiigay, waa dhacaankay. allah cisiy. marka fadlan yani ma yani yaan loo gafin oo beesha loo gafin haddii la akid maayo. waa jiraan rag siyaasiyiin ama madaxa oo aniga dilkayga ku raali gelinaya dowladda Itoobiya. marka walaalayaal dadku dad sharaf la weeyaan, laakiin waxaa jira dad u shaqeeya Itoobiya oo shacabka gumaysta, culummada iska xirxira, dadka caburiya, kii wadaniya god dheer ku rida, ku raaligeliya dilkooda iyo xabsigooda iyo jirdilkooda dowladda Itoobiya. anigu waxaan idin leeyahay marka ha ka teginina Soomaalinimada, islaamnimada, walaalnimada. kulligeen walaalaynu nahay, daarood, isaaq, hawiye, dhammaan qabiilada Soomaaliya, dir iyo daarood walaalaynu nahay. maantayn Itoobiyaanka ninkii ahaa uu daaro dhaadheer ka jeexday magaalada Hargeysa, kuna faanaya badda berbera isagu inuu leeyahay. aniguna saacaddaas meel kasta la jebiyey, dhabarka dhaawac naga gaaray, qoorta dhaawac naga gaaray, madaxa dhaawac laga gaarsiiyo, dhiig inuu ugu furmay ka baqayo, xiniyahan laga garaacay. anigu saas dhaawaca u ah, haddana saacaddaas aan ku dhuumanahayo
meel ilaahay og yahay oo qaybta howlgalka ee booliska oo ay ceyrsanayso oo ay goobayso saacadaas waxaa su-aashu ay tahay yaan dembi ka galay maxaa laygu dilahayaa maxaa laygu ceyrsanahayaa maxaa lay fungarahayaa maxaan galabsaday inkii taliyaha ee labiska anuu halkaan sida aan ogaaday tuulo walba iyo degmo walba qabiilka jooga iyo xaafad walba ayaa xukuma waa maleeshiya beeleedka ka jira magaalada muqdisho oo kale waa tabtaas bay shacabka iyo qeexeen markaa yidhahdo maxaa la ii dilay maleeshiya beeleedka muqdisho ka jira oo kale qayb walba tuulo walba iyo xaafad walba dadka degan beeshooda ayaa hubka u haysto boolisna u ah militarina u ah qofkay doonaan bay dilaan qofkay doonaan bay dhacaan qofkay doonaan bay xiraan qofkay doonaan bay kufsadaan qofkay doonaan bay bilaqaystaan qofkay doonaanna Itoobiya ka gadana u dhiibaan waxaan markaa codsanahayaa maadaama anigu dalka iyo dadka iyo deegaankaba aan u dhashay jeclahayna horumarkiisa iyo nabadiisa iyo quruxdiisa waxaana codsanahayaa Soomaali weyn meel kastoo ay joogtaba cadaalad inay ku dhaqanto islaamnimo inay ku dhaqanto alla ka cabsi inay ku dhaqanto xurmo inay ku dhaqanto xoogga ay isu sheeganayso inay iska dayso nidaam dawli ah inay u gudubto ka gudubto maleeshiya beeleed boolis edab leh ciidamo dambi baaris oo edab leh ciidamo military oo akhlaaq leh shacabka nin marqaansan oo meel ku qaylaya wuxuu leeyahay ninka hebel ii soo qaba ii soo xir ama nin baa siinahaya lacag laaluusha nin leeyahay ninkaas ii soo xir ii soo qabo haween walaalayaal anu hadda caawa dhintane alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay taydii baa gashay nin weynna wadkiisa waa yaqaanaa anu hadda waa dilnahay si xun baan u dilnahay xiniyaha dhabarka madaxa qoorta qori baagis baa laygu garaacay walaalayaal kamana filaynin halkaan Hargeysa waxaas kama filayn laakiin shacabka waa la haystaa shacabka waa la caburiyey shacabka dulmi badan baa ka jira laakiin dad sharaf la wey dadku laakiin dulmi fara badan baa ka jira waxaan marka xasuusin lahaa walaalahay Soomaali weyn aniga magaca laygu dilay hadii Soomaali weyn anigu Soomaali weyn qabiil aan ku caayay oo caay ku yahay ma jirto qof kasta oo muslimana waa ogyahay waa ku dhimanahaya waana ku noolaanahaya waana ku dhaqmahaya tuulo walba oo Soomaaliya aan tago Soomaali weyn baan ku hayn anigu qabiil gooni iyo cid gooni iyo maamul gooni ah anigu aan ku caayahayo ama aan ugu kafahayo ama aan wax ku yeelahayana ma aha marka Itoobiya oo arrinta ka xun iyo Kenya oo ka xun inay aniga dadka walaalahay oo dhiigay ah oo Soomaaliyeed telegram ta u soo diraan dadkii iska xasuuqa walaalayaal waa wax laga xumaado weeyaan da waxaan leeyahay dadka Hargeysow walaalayaalow walaalkiin baan ahaa idin imid si sharaf leh ii soo dhaweyseen ma xaq baa mise waa xaq darro waxa la igu sameeyey dadka Soomaali weynna waan weydiinahayaa saad u jeedaan gacantan xataa dhib ay gaaray waan gariirayaa neerfaha oo dhanba teleefonku waa ruxmayaa saad u jeedaan ma ahayn karo gacantayda anoo dhan baa gariirahaya saacadaas wallaahi saad u jeedaan oo gariirahaya walaalayaal marka waxaa weeye inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun haddii taydii gashayna hadde waa ilaahay mahadiis gacanka xaq daran baa i dishay waad ogeydeen markaan ka soo baxayay saakay hoteelkii ummadda islaamka oo dhan baan ammaanay Soomaali weyn baan ammaanay cid walbaan ammaanay dadka halkaan joogaan ammaanay maamulkaan ammaanay ducaan u duceeyey marka la soo weerarayay makhaayad baan fadhiyey makhaayadda wanaag baan ku hayay
barwaaqada iyo nicmada iyo sharafta iyo karaamada deegaankan taalaan ka hadlahayay qabiil kuma caayin madax kuma caayin ninku markuu ifeerahayay garaacayay taliyaha yani musabixi anigu aan islahaa ninkii wuxuu sheegahayay sharcigaan ilaalinahayaa buu dhihi jiray laakiin sidii jabhaddii bay u dhaqmeen raggiisii wuxuu dhihi jiray markii la dooranahaya sharcigaan ilaalinahayaa sharciga islaamkaan anigu fahmay qur-aanku akrinahayay sunnadu akrinahayay laa ilaha illa allah muxamad rasuulullahi buu lahaa laakiin waxaa ii caddaatay hogaankii rag jabhad ah ayaa la wareegay oo manaxayaal ah waan naxariisanayn waan culimo xurmaynayn waan marti xurmaynayn waan ehelnimo lahayn oo sokeeyanimo lahayn oo dhaqankii islaamnimadii ka tegay etoobiyana si toosa oo hoos tagay ayaa meesha la wareegay baan aan u aaminsana sababtoo ah qof soomaali weyn degaankeeda ka doortay iyaga oo u yimid oo dadkii jacaylka ii muujiyeen iyo wanaaggii iyo guryahay dejiyeen iyo qasriyada iyo sharafta iyo karaamada in laga naxo shacabkaa jecel ama laga masayro dadkaa jecel waxay ceeb ku tahay musabixi oo shalayta lahaa sharcigan ilaalinahaya nin qabiil dad ku dili kara ma jiro laakiin qabiil awood loo ninkaasu ii sheegtay ninkaasu sharci kuma socon taliyaha ah iyo ragga soo diray waxay ku socdeen wax foolxun bay ahayd shacabka hortiisi bay ugu dileen markaasaa shacabkana qof hadli kara male waxaas dadka jooga garowga hortooda nin askariya kuma samayn karo shacabka hortiisaas wallaahi hawiye dhexdiisa nin askariya saas kuma samayn karo shacabka dhexdiisa nacam kuma samayn karo saas meesha kismaayo la yiraahdo nin askariya inta oo taliya uu yahay sargaal sare ah kuma samayn karo maxay ku dhacday nin leeyahay taliya la leeyahay oo gaashaanla xidibuhu ku raran yihiin walaalayaal darbiga inta igu dhajiyo oo laba askari soo qaxaysto darbiga isaara dadka hortoodii qori baagi igu garaaco madaxa iga garaaco meel walba iga garaaco ilaahay baan ku dhaarshiyo soomaaliyay ma dhaqankii fiicnaaba soo waxaas ceeb maaha qof aan hub haysan anigu jabhad ma ihi hub ma haysto maxaa laygu xiray oo hadda heestii caldoon anigu ma xifdisani laakiin maxaa laygu xiray maxaa laygu dilay maxaa laga faa'iiday dilkayga maxaa laga faa'iiday cayrsigayga soo ceeb maaha ma sharaf baa maxaan dhimay ninku markuu ifeeray wuxuu leeyahay soomaali weyn dadka hargeysa aan ku arkay boqolkiiba lixdan wallaahi billaahi tallaahi soomaali weyn bay aaminsan yihiin wallaahi billaahi kuwa hadda dhakhaatiirta i daaweeyey oo saas madaxayga ii dhayay oo meel walba iga daaweeyey oo kiniinka i siiyey oo irbadaha i siiyey soomaali weyn bay aaminsan yihiin okay qofku wuxuu doona aamini karaa doorashaa lagu kala baxaa alistiftaa cod bixin war shacabka u codeeye kulligeen ma waxaynu raacnaa inaan go-ono inaanaan go-in taas hadday siyaasad noqoto weeye qofku wuxuu doona aamini karaa haddaad ka badan inta badan ay noqoto aan go-no ama aan joogno waa wax la yaqaano qofku wuxuu doonu aaminsanaanayaa isagoo muwaadin ah buuna xurmo ku leeyahay wuxuu aaminsan yahay laakiin halkaan qore caaradi dalka iyo gumaysi haysto waa la haystaa dalka dad wadaniyiina oo yaraaday dad shisheeye u shaqeeya oo xukunka la wareegay ciidamadii la wareegay saraakiisha boqolkiiba 80-90 Ethiopia keensatay ayadaa soo tababarta ayadaa xidigaha soo siisay iyaday toos u hoos tagaan iyaday mukhaabaraad u yihiin waa saas waxaan leeyahay marka walaalayaalow meel kastoo aad joogtaan shanta Soomaaliya waxaan idin leeyahay gumaysiga ka xorooba waan xoroobi karnaa waa xoroobi karnaa gumaysiga ka xorooba xor noqda anigu wanaag baan idinla jeclahay anigu qabyaalad idinma wado walaalooba isjeclaada iscafiya gacmaha isqabsada diida gumaysiga
reercon from amisom iska saara, ethiopia iska saara uganda, iska saara burundi, iska saara cadowga, diida siyaasadda foosha xuna reer galbeedka, diida siyaasadda foosha xuna reer yurub, xalaano ka saara, meel walba ka saara. baddan 250 baa fadhida maraakiib ah, fishing boats ah, ka saara. ragga qabqablayaalka oo badaha saxiixaya diida. waxaan si gaara ula hadlaya xildhibaanada soomaaliyeed oo aan leeyahay taqu llaha tabaaraka wa tacaala, ilaahay ka baqa. taariikh baa qormaysa, mooshinkan iyo xaaraantan carabtan nijaasta ah oo ilaahay ka fogaaday ay dalkayna ku birlaqaysanayaan. diida, joojiya mooshinka u bedela difaaca dalka, difaaca dadka, difaaca qaranka, difaaca xuduudaha, difaaca hawada, cirka iyo baddaba u bedela. taas ka shaqeeya. haddaad muslim dhaba tihiin, haddaad gaala tihiin, ama munaafiqiin warka gaalaha shisheeye ay shilinkooda maaragtay dalkooda iyo dadkooda silaca shacabkooda ka siistay, ilaahay waa idinla xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala. oo meeshaan joogo dadka ku nool iyo meel kastoo ay joogaanba soomaali weyn, haddaan caawa dhintay iyo haddaan noolahayba waanu duceeyey. ilaahay haydin dhowro, ilaahay haydin xifdiyo, ilaahay guula haydin siiyo, cadowga allah idinka qabto. aniga xornimo u dirir baanaha, xornimo u dirir ayaan ahay. cuqdad anuu ma qabo. waxaa la ii dilay aan u dhintay caawa soomaali weyn buu aaminsan yahay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. amaa lay leeyahay ninkan qabyaalad buu ku socday, talla ay ree hebelew buu leeyahay. maya wallaahi markuu qoriga u garaacay iyo feerka igu hayo, katiinadda igu dhigan tahay, soomaali weyn buu ku hayaa. inta soomaali weyn caayay buu ku hayaa. soomaali weyn waa xiroobaysaa insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. etoobiya waa burburtay, civil war baa ka socda. kenyana waa burburaysaa, waa xiroobaysaa soomaali weyn. fa ina maca alcusri yusran, ina maca alcusri yusran, sayajcalu allahu bacda cusrin yusran, alaa ina nasra allahi qariib. mataa nasru llah, alaa ina nasra allahi qariib, alaa ina nasra allahi qariib, alaa ina nasra allahi qariib. guushu waa dhowdahay. haquusanina soomaali weynay, geesiyaal noqda, madaxiina kor u qaada. awowyaalkiin iyo abkiin iyo isirkiin sanku dulle inuu gumaysto ma ogolaan jirin, ma yeeli jirin. walaalayaal madaxiina kor u qaada, shahaada oo dhah laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. ku walaalooba laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah. isku jeclaada, isku xiriiriya, isugu gargaara, ehel iyo sokeeye ku noqda. ka gudba qabyaaladda, ka gudba xinka, ka gudba xaasidnimada, ka gudba qaybsanaanta, ka gudba burburka, ka gudba in koox walba iyo qolo walba iyo qabiil walba uu calan gooniya taagto. ka gudba walaalayaal. waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. awood adugu keliga qabiil kastow waa tahay daciif weak. lakin you're powerful with your brothers and sisters. waxaad awood ku leedahay qawiyun biikhwaanik, walaalahabad awood ku leedahay xoog. walaalayaal waxaan ka codsanayaa reer Hargeysa, anigu haddaan dhintana waa dhintay, haddaan noolahayna jug xun baa i gaartay, dhaawac xun baa i gaaray. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. laakiin waxaan diyaar u ahay inaan dhiigayga u qubo midnimada soomaaliyeed, shanta soomaaliyeed guusheeda inaan u qubo baan diyaar u ahay. anagoo hub ma sito, anagu dhufayskuma jiro, anagu dadoo hebel iyo hebelow dagaalama ma dhihin, islaahi ma oran. qofku fikraddiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa wuu ku hadli karaa. hadduusan dad laynaynin, cid cayrsanaynin,
cid weeraraynin waa xaqdarro in la dhaho maxaad fikraddaadu saasay u tahay. xaqdarro weeyaan walaalayaal, dulmi weeyaan walaalayaal. reer Hargeyso waxaas ha laga joogo walaalayaal. ha la iska qabto cadaalad darrada, ha la iska qabto dulmiga, ha la iska qabto maaragtay awoodda laysu sheeganahayo. waxaan ka naxsanahay dulmi fara badan oon arkay. waxaan ka naxsanahay jeelalka iyo xabsiyada oo buuxa, masaakiin badan oo ka buuxda, dhalinyaro fara badan oo ka buuxda, culamaa u diin iyo ducaad fara badan oo ka buuxda. ilaahay ha laga boqo subxaanahu wa tacaala. ittaqu llaha tabaaraka wa tacaala. waxaa weeyaan xasuusta sheekh iblislaam ibnu taymiya wuxuu yiri raximahu llahu tacaala, dowladda caadiladda ah, dowladda cadaaladda ku dhaqanta weligeed way jiraysaa, weligeed way jiraysaa, wa in kaanat kaafira, xataa hadday dowlad gaala tahay. war qabiil walowba dulmiga iska daa, war tuulo walay dulmiga iska daa, war magaalo walbay dulmiga iska daa. wa ka'ayyin min qaryatin catat can amri rabbiha faxaasabnaaha xisaaban shadiidan wacadabnaaha cadaaban nukraa. in badan baad qur-aanka ku arkaysaan soomaali weynay. wa kam ahlagnaa min qaryatin, badanaa oo badanaa intaan qoom halaagnay. war ku qusqaata kuwa ilaahay halaagay, kuwa alla dhulka la jaray, qaar ba alla badaliqsiiyey biyah, qaar ba alla subxaanahu wa tacaala qaylo ku halaagay, qaar ba alla isku diray. war ilaahay u toobadkeena soomaaliya. xalkeenna waa islaamka, xalkeenna waa tawxiidka, xalkeenna waa laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah. yaanaan u noqonin casrigii jaahiliyada walaalayaal. kayfa kaanat xayaatadii carabtu sidee bay ahayd qabla bicthati muxamed, qabla bicthati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal see bay ahaayeen. anigu tan waa iga dardaaran wey, waa laga yaaba inaan dhinto. walaalayaal jaahiliyay ku noolaayeen, dulmi bay ku noolaayeen. qabiilka xoogga badan wuxuu u awood sheegan jiray qabiilka awoodda yar. baktigay cuni jireen, sanamyaday caabudi jireen. waxa weeyaan waxaa haystay gumaysi, two super powers. laba quwadood baa jirtay caalamka, alfurs waruum. maantay waxaa jira the two super powers, America and the Russians. marka furuskii ruumkii hortood walaalayaal waxaa soo maray powerful nations baa soo maray, ama quwado ama awood leh. ilaahay waa halaagay subxaanahu wa tacaala. qowmu thamuud iyo qowmu caad walaalayaal, yaa maxay dhaheen? man ashaddu mina quwa, who is more powerful than us. waxay dhaheen yaa naga awood badan, yaa naga xoog badan. waa kibreen walaalayaal. war yaana kibrin, war yaa nicmada lagu kufrin, war yaa nicmada lagu kufrin, war yaa nabadgelyada lagu kufrin, war yaa barwaaqada lagu kufrin. war ilaahay ha loo shukri noqo, war dulmiga la iska daayo. waxay dhaheen yaa naga awood badan. awalam yarow, ma waynan u jeedin, ogeyn, arkaynin, ana allaha aladii khalaqahum, allihii abuuray, huwa ashaddu minhum quwa, inuu ka awood badan yahay, ka xoog badan yahay. walaalayaal ilaahay muxuu ku halaagay? dabayl. fa arsalnaa calayhim riixan. walaalayaal dabayl baa alla ku halaagay. qowmu caad. kadabat thamuud wacaadun bilqaarica. waxaa igu darsamay wadnaho ay garaacaya walaalayaal, wadnaho ay garaacaya igu darsamay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. walaalayaal, waa dhacday, tan waa dhacday. waxaan idinka codsanayaa, aniga dhibka i gaaray yaan qof loo caayin, yaan qof loo dulmin, yaan qabiil loo caayin. beri baan ka hay arrintaas. anigu hadalkayguna maaha fidno inaan ummadda ka dhex abuuro. isjeclaada soomaaliyeed, soomaali weynay iscafiya, soomaali weynay garbaha isqabsada. fattaqu llah wa aslixuu daata baynikum. ilaahay ka baqo heshiiya, saasaa la yiri. asalxu khayr. walaalayaal waa gariiraya, gacantu way gariiraysaa. anoo dhan baa jirracoonaya, qandha ay haysa walaalayaal. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. waxaan filaynay cadaalad, waxaan filaynay walaalnimo, waxaan filaynay ehelnimo, waxaan filaynay maamul wanaag. meel walba, tuulo walba, xaafad walba, albaabka haddaad u baxday nin maleeshiya beeleeda maaragtay xabad iyo qori haysta. nin maleeshiya beeleeda, ciidan isluub leh, ciidan edab leh, ciidan akhlaaq leh, booliis military ma leh. wax etoobiya u shaqeeya way kulli. khalaas, qof wadaniya waa baqaya, qof dalka jecel waa baqaya, qof horumar jecel waa baqaya. koox yar oo xoola haysata yaa iska dhuuqaysa, bes iska dhuuqaysa. qofka hadlana waa toogasho iyo xarag iyo xabis iyo in loo tarxiilo etoobiya. meel walba, muqdisho waxaa ka jira, waad la socotaan dulmiga. kismaayo waa la socotaan dulmiga ka jira. baydhabo waa la socotaan dulmiga ka jira. gaalkacyo waa la socotaan iyo garowe dulmiga ka jira. caabud waaq iyo garbahaari dulmiga ka jira. jigjigo iyo qalaafe iyo harar iyo hawaashi ina ilay. xasuuqa ku haya muslimiinta oramada, xasuuqii lagu hayo soomaalida qabiil. war dulmigaa la iska daayo. iyaakum adulm fa ina dulm ظلمات يوم القيامة. beware of wrong doing. warka taxadara, war iska daaya dulmiga. waxa weeyaan, waxaan la yaabanahay, lama yaabani aniga nin taliya ah. ilaahay baa taliya gaashaanla ama jenaraala oo aniga la igu soo diray, etoobiya igu soo diray, lama yaabani. laakiin waxaan la yaabanahay nimankii walaalahay ahaa oo culimmada sheeganayay, oo wadaadada sheeganayay, meeshay soo dhaweyn lahaayeen, meeshay walaalay dhihi lahaayeen, inay anigii message iyo taxin iyo meel walba, masaajidyadii iyo jaamacadihii iyo dugsiyadii qur-aanka iyo meel walba ay leeyihiin. ninkii baa yimid, ninkii balaayada ka sheekayn jiray, ninkii baa yimid, hala xiro, hala dilo, hala qabto. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. inay u dabaaldegeen qaarkood aniga dilkayga. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. arrintaas aan leeyahay dhaqankii islaamka maaha, dhaqankii fiicnaa maaha, dhaqankii walaalnimadana maaha, dhaqankii laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullaahi ku salaysnaana maaha. ilaahay ka cabsado. maxaad ka helaysaan haddaan caawo dhinto? soo walaalkiin midnaa dilin. maxaad ka helaysaan dilkayga? ma maxaaraad u helinaysaan? etoobiyaan baad u helinaysaan? ma kufaar baad u helinaysaan? adoo diin sheeganaya, oo xisbul islaam sheeganaya, oo xisbul itixaad sheeganaya, oo xisbu ahlu sunna waljamaaca sheeganahaya, haatana dhuusa mareebtaangiga maxaaraday fuushan yihiin. fa maxaari bay ku hadlayaan. waa kuwanaa kismaayo sidoo kale kulligood wadaaday sheeganaya, sheekh hebel iyo sheekh hebel iyo ninka madaxtooyadaas sheekh daahir baa la dhahaa, waa etoobiyaan. haye shaafi raab waa ninkii buuraha saliid ka dagaalamahayay, cabdullaahi raabigan al-shabaabka walaalkiis weeye, maantana waa etoobiyaan. sheekh axmed madoobe waa kana etoobiyaan. haye sheekh axmed mansuurkii shalayto haddii ilaahay ku idmahayo
weligiis haddii ilaahay ku idmaayo yani intaasoo qarax ka qayb qaatay maanta wiilkiisa wuxuu ku dhintay xudur isagoo shabaab la dirarhaya etoobiyaanka lama dirarhaya isaga etoobiyaankii baa garab isku dhufays ku jira subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim maxaa shaati la isu gashaday maxaa la isku dheelay maxaa kursi diin la siistay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leeyahay marka wadaadada soomaaliyeed walaalooba inama almuuminuuna ikhwa almuslimu akhu lmuslim ayaad akrinaysaa haddana walaalama tihiin xisbiye iyo ururdiimeed ayaad u kala baxdeen firaq baad u kala baxdeen kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun qofkii aan xisbi iyo ururdiimeed ahayn waa fongaran yahay al-shabaab haddaad ahayn waa ku dilayaan ictisaam haddaad ahayn waa ku dilayaan akhwaan muslimiin haddaan ahayn waa ku dilayaan suufi haddaad ahayn waa ku dilin nin walba haddaadan urur ahayn laakiin aada banaankaaga martid kitaabka ilaahay sunnada waa ku dilhayaan walaalayaal anigu miskiinka allah lay dhahaa caalim ma ihi oo sheekh ma ihi oo ma ihi dalka waa jeclahay diintana waa jeclahay dadkana waa jeclahay dunuubteydana waa fara badanta ilaahu cafi qofkii aan u gafay iyo qabiilkii aan u gafay iyo cidd aan u gafay kun iyo kow jeerna waa idin iray iyo culamo iyo caamaba walaalayaal waa cafalay masaabax raalli ahaada waxaas waa ka gudbay waa ka tegay kun jeer baan idin iray haddaad ilaahnimo sheeganaysaanne hadda ii sheega waxbaad layseen 1 milyan iyo qof baad disheen ummad islaamaad dhacdeena billaqaysateen xaaraan baad ku nooshihiin haddana masaajidii baad ka adimaysaan oo ka khudbaynaysaan weli dulmigii baad ku jirtaan iyo qabyaaladii waxaa weeye anigu intaasoo dhan ma gelin haddii gafiga dhacay walaalayaal raalli ahaado ama aniga dilkayga anigu dilka la ii geystay aniga ehelkayga ay dilay dadkay baana i dilay laakiin anigu waxaa cadowga aan la dirirayo etoobiyaanka soo diray weeye walaalayaal doqoma ha noqonina anigu wiilkiinni baan ahay inankiinni baan ahay dhiiggiinni iyo dhacaankiinni baan ahay sabab aad ii dishaan ama cadowtinimo igu muujisaan ama saacaddan ii cayrsanayo baaritaan aniga aan dhumasho ku jiro saacaddaas qaybta howlgalladu ay cayrsanayso saacadda iyo minidkaas etoobiyana ay amar i dul dhigta in laysoo qabto in la itoogto la idilo la jir dilo walaalayaal xaq darro weeye idinma qabato reer Hargeysow idinma qabato madaxdow idinma qabato waa dulmi walaalayaal waxaan kun iyo kow jeer u mahadnaqayaa walaalahaygii soomaaliyeed oo isoo dhaweeyey hargeysa igu soo dhaweeyey jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum hoteeladii lagu soo dhaweeyey makhaayadii lagu soo dhaweeyey xafladihii laii sameeyey walaalayaal jazaakum allahu khayr inta xun ama sida xun u fakaraysana waxaan leeyahay ittaqu llah ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada qof ehelkaa ah oo walaalkaa ah oo sinjigaa ah oo soomaaliyeed inaad dhiiggiisa ku farxayd ama aad dishid ama aad cadow u dhiibtid wallaahi baadan boqor ku noqonaynin wallaahi baadan guul ku helaynin wallaahi baadan sharaf ku helaynin wallaahi baadan maaragtay kursi ku fadhinaynin ilaahay laga cabsado anigu dulmi kastoo i gaaray madaxda waa u duceeyaa ilaahay madaxda ha xifdiyo ilaahay ha karaameeyo ilaahay ha ciseeyo soomaali weynna allah quweeye madaxda allah u quweeye ilaahay ha u hagaajiyo waxaan idinka codsanayaa maanta dilka aniga la ii geystay ha noqdo dilkii loo geystay qof soomaaliyeed shanta soomaaliya ha noqdo qof dilkii loo geystay qof soomaaliyeed oo muslima oon waxba galabsan oo miskiinka alla oo kale ah aan hub haysan awood in loogu faano qabiil in loogu faano xoolo in loogu faano rag in loogu faano waa nacasnimo haddaad rag tihiin cadowga etoobiya iska dhiciya haddaad rag tihiin ina ilayeliyo booliiska iska dhiciya haddaad rag tihiin geesiyaal noqda haddaad rag tihiin
qabiilooyinka aad isu laynaysaan joojiya. walaalayaal marka waxaa idin leeyahay haddaad rag tihiin kuwa dabadhilifka oo jawaasiista iska qabta, haddaad rag tihiin qabiil walowba baddaada iyo birigaaga iyo hawadaada difaac. calanka aad la ordaysay qabiil walowba deegaanka ilaahay ku siiyey in aan la dhihin bad iyo biriba Ethiopia iskale 20%, 30%, 30%. rag haddaad tihiin wey, rag dhale haddaad tihiin. shacabka waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaanba fitna ka dheeraada, qabyaalad ka dheeraada, xumaan ka dheeraada. walaalaad tihiin qabiil kastoo aad tihiin, walaalaad tihiin qabiil kastoo aad tihiin. ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada, ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada, ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada. waxaan weydiinayaa dadka Soomaaliyeed ee goboladan degan, waxa weeye anigu dadkan walaalahay weeye. degaan haddii la dhahna waan ka soo jeedaa. waa kuwaana guryihii awogay halkaan ku yaalla Berbera. aad maqasheen 60 jirkii Sacad Muuse oo inkaga sheekeynaya xaaji Dabacsan inuu ahaa reer Berbera, reer Burco aan ahayn. waxa weeye dalkan waa dalkaygii weeye. nin Tigree ah oo af Soomaali bartayna igama xigo, kun jeer baan leeyahay. nin Tigree ah yaa oo af Soomaali bartay, xataa luqadii reer waqooyiga barta waariyihii ku haya, aniga igama xigo, igama lahan. waa dhulkaygii, waa dadkaygii, waa diintaydii, waa dhacankaygii. haddii la leeyahay qabiil gooniya iska leh, haa waa laiga leeyahay. mar waa ardullaahi, waa dhul ilaahay, waa ardul islaam oo muslim baana laygama xigo. marna waa u dhashay oo waa dhulkaygii. waa dhulkaygii markaan ku leeyahay waana dhul Soomaaliyeed oo waa dhulkaygii. waa labo, waa dhulkii awowayaalkii weeyaan. intaasoo isku darsaday yaa ayaan xaq ugu leeyahay. marka dadka halkan faallooyinka beenta ku soo qorahaya oo fidna walayaalka ah oo qurba joogta ah, waxshoodku ka tegay oo le hala dilo, hala xiro, hala tarxiiro, waxaan idin leeyahay waa dhulkii awowayaalkii weeye. wallaahi baad iga xigin adigoo Tigree ah, aabbaha Tigree yahay, maqalna ka yimid, kaartoonada kansarka laga qaaday gada, kuwaasna xaaqan idin leeyahay. xaaqa cayri haddii la kudmay hal laga saaro, dalka laga saaro. amarka boqorka shanta Soomaaliya qaata shanta هذا مركب ولا ليال أنا دولكي وي دولكي إهلكي دولكي ولا لاهي دولكي ويالكي وي وحاوي ساس أي تحي إن أنا جانا ليجو عيرسدو دولكي ويالكي وياي يا ولا ليال يا إن ولا ليال حتى أنت سان هاللي ما واحد عبادة ما غشين حتى واحد بيانكو هاللي إيشيغ ما يتبان عاي مايا ظلمي اللي يسميان كهذا تذكر مسلم كلو يقاننا وحي أهايان مسلمين كانوا وقافين على كتاب الله آيات الغض الأخرية حديث الغض الأخرية قر الله دكتوي قرب حجرين وردتك المسلمين تاهو وردتك ولا الله يوديك إيجستيو إيجا قربح محان دين دمي ولا الكين بانها سومالي وين إذن كدورتي جعايلو إذن قبل كان إذن يمد الكيسي ددكيسي إيه الكيسي ويمد عرورتيس ويمد حادي ود الشيء حاد كفايدين دلكي حاد كفايدين سن عير سغي ياد كرها لقلن يسن ميتو بيه واجران ضد قبيلة أيد الشيء يان دنبك قال عنو إيش مقف بان دلي مقف بان داوعي مقف بان عاي إيش ولا ليال أوكي وحماد الدلين وحماد الدعين وحماد أحدين
adoo qurbaha joogtaa dad ka hadashay okay anoon imaan iyo anigoo imidba walaalayaal yacafiyo raalli ahaadaan idin iri ilaahay baan idinku dhaarsheey intaas haddaan iriyo idiin imid maxaad igu dilaysaan waxaan leeyahay dadka 90% 80% waa dad sharaf leh qabiil kasta halkaan jooga waxaan leeyahay inta xun gacanta qabta inta xun gacanta qabta walaalayaal aniga fariinteeda waa intaas qof ma caayahay qof ma ceebeynahay qof ma cambaareynahay madaxda Soomaaliyeed Soomaali weyn ilaahay ha xifdiyo ilaahay ha dhowro wakaas ilaahay baan ka baryay subxaanahu wa tacaala Soomaali weyn barwaaqa Allah siiyo Soomaali weyn Allah ciseeyo Soomaali weyn Allah sharaf Soomaali weyn xor Allah ka dhigo Soomaali weyn gumaysiga Allah ka qabto bad iyo biriba Allah gumaysiga ka dulqaado anagu saasaan ku duceeyay qof ii dhibaateeyayna anagu hadaf weyn baan leeyahay kuwa nacasiyada oo dadkooda meel walba ku xasuuqaya shanta Soomaaliya ku xasuuqaya gumaysiga u adeegaya ka jooga maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax maxaa laga dheefay walaalayaal dhiibistii qalbi dhagax Soomaaliyeed maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax maxaa laga dheefay walaalayaal maxaa laga dheefay haliyey fara badan oo la dhiibay oo shanta Soomaaliya laga dhiibay maxaa laga helay dadka ay xirxiratayow ragga ay xirxiran yihiin xabsiyada waa buuxaan meel walba soo daayay qabiil walowba soo daa maamul walowba soo daa ittaqullaah tabaaraka wa tacaala la xisaabtama shacab weynow shacabka Soomaaliyeed saasaan idin leeyahay waxaan idin dardaarmayaa walaalayaal heshii gacmaha isqabsada waxaan anigu ka codsanayaa marka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee deegaankan degan walaalayaal odayaashii Soomaaliyeedow culimadii Soomaaliyeedow dhalinyaradii Soomaaliyeedow siyaasiyiinta Soomaaliyeedow haddii ilaahay ku idmahayo haweenka Soomaaliyeedow ganacsatada Soomaaliyeedow walaalayaal walaalkiin baan ahay wiilkiinni baan ahay ehelkiin baan ahay insaan la ii silciyo xaq uma aha waa dulm waa gardarro waa xaraam waa alla ka fogaansho cuqubo alla ka dhalanaysa dad fara badan oo saasoo kale loo dulmiyana waa xaaraan askarta akhlaaq ha loo yeero disibliin ha la baro garsoorka iyo cadaaladda ha la xoojiyo shareecada islaamka ha lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnada laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah hooskeeda ha la harsado gumaysiga ha la diido iisoo qabaya iisoo xirtaan ha la joojiyo qurunka iyo qabyaaladda ha laga gudbo ha loo gudbo dad Soomaaliyeed oo wada nool qabiil kasta ay yihiin deegaan kasta qabiilka degan dadka degan sharaf inay ku dhaqmaan waxay suquuraan cadaalad ku dhaqmaan islaamnimo ku dhaqmaan waxaa weeye rag baan isoo wacay nin baa maanta isoo wacay wuxuu yidhi waxaan ku tusayaa meelihii dowladdii Soomaaliya dhibkii ay geysatay xasuuqii ay geysatay ayaan ku soo tusahayaa meelihii dadka lagu xasuuqay waan ka tacsiyeynayaa qof kastoo muslim oo la dulmiyey Hargeysa intii lagu dulmiyey muslimiintii lagu dulmiyey dadkii guryahooda lagu laayay dadkii la qaxiyey dulmi bay ahayd ilaahay raalli kama ahayn waa ka tacsiyeynayaa xaal marin baan ka bixinahayaa Soomaali weyn baan leeyahay raalli geliya walaalihiin magdhow ka bixiya agoontii koriya guryahoodii u dhisa ilaa heer caalami heer dowladeed magdhow ha lagu bixiyo ilaahu raalli kama yihi qabiil kastoo la dulmiyey raalli kama yihi marka dadka waxaas xasuusan ama aabahood ay jabhadihii ahaayeen war aniguba maxamed siyaad barre waan mucaaraday sawayna adeerkayaan mucaaraday anuu reediino in adeerkay uu yahay cid iga dhawaysa jira maan mucaaraday laakiin caawa waxaan leeyahay gardarran ku mucaaraday siyaad barre
إلهي هون حريست إلهي هون حريست sababtoo ah 86 bashil baabuur galay xasan abshir baashir geliyay waa dhaawacmay buul buu noqday wax ma kala garanaynin wallaahi billaahi tallaahi maxamed siyaad barre wax ma kala garanayn dhaawac buuna ahaa dhaawaca aniga i gaaray meel walba layga jabiyey qooraha layga garaacay qoorta layga garaacay dhabarka layga garaacay madaxa layga garaacay oo caawa aan daakun aan ahay aan kulligay gariirahay jarcaynahayo saasoo kale waa maxamed siyaad barre dalka qabiil kastay ahaayeen dadkii maamulanahayay mareexaan baa isnacay reer diini baa isnacay waxa weeyaan dad gooniya dalka haddii ilaahay ku idmahayo xukumay oo kala duwan oo maafiya ah oo qabiil kasta leh ayaa dadka laayay iskuna laayay xamar markii la isugu soo galayna saraakiisha mareexaan siyaad barre waa ka carareen qurba joog waxaa u badan beesha mareexaan soomaaliya oo dhan baa og mareexaan waa ka yaacay madaxtooye waxaa ka soo jiiday morgan baa ka soo saaray madaxtooye maxamed siyaad barre soomaali weynay taa waxaan idin leeyahay walaalayaal anoo maxamed siyaad barre qabiilkiisii ah iyo anoo soomaali weyn magaceeda ku hadlaya boqorka shanta soomaaliya raalli gelin baan ka bixinayaa xasuuqaas ilaahayna raalli kama ahayn jabhadihiina ayaguna xasuuq waa geysteen marka waxaa weeye walaalahay waxaan leeyahay waxaas halayska iloobo rag noqda musabixi oo madaxweynaha maanta halkan ka ah oo la doortay raggii soo dagaalamay buu ahaa laakiin waxaa looga baahan yahay inuu shacabka halmaansiiyo wixii hore asaguna iska halmaamo cuqdadana carruurta lagu beerayna laga saaro oo dadka deegaankan degan qaarna dowladdii bay taageersanaayeen oo badankooda dowladdii way taageersanaayeen qaarna jabhad bannaanka timid bay ahayn oo ujeedda lahaa ujeeddadoodii waa la gaaray waa gaareen dowladdii waa burburtay waa dhacday waxa weeyaan marka in qabiilo magacyadii shalayto la adeegsado waa lagu sii kala fogaanayaa hadda waxaan arkayaa kuwa soo qoraya faqash walaalow faqash hadda iska daa walaalow hadhihin faqash walaala dhe walaalkayga degaankayga ahow aan isku maamulka nahayow haddaad xataa maaragta aad leedihiin maarata somaliland baan isla nahay war hadda faqash ma dhulbahantaa faqash gudubiirsay baa faqash la faqash ma waxaa warsangeli war waxaana la iska daayay wixii fidna abuurahay hadda intaasoo kun baa soo qoraysa ereyga faqash ilaahay ka baqa marka san waa lagu baabaaya ittaqullah culummadu ha istaagto oo dadka wacyigelin ha u samayso dib u heshiisiin ha la sameeyo oo dembi ha laga dhigo waxa erayada tan la adeegsanaya ummadda kala fogeynaysa dembi inay tahay maxkamad la isku saaraya ha laga dhigo war carruurta cuqdada ha laga daayo war muslimka walaalo weeye war amxaaraana haysata war tigreebaana haysata war magiciin jir war ragga soomaaliyeedow sidaas u dhaamo war hawiye iyo daaroodow war dir iyo daaroodow war magiciin jir waraawa raggii sharafta lahaa waraawa culamaa diinka soomaaliyeed war mamooshin iyo xaaraan iyo bakti baad ku jiraysaan war ma imaaraadka carabta ninkan miskiinka ah oo ehelkiisi gooyey maxamed cabdullaahi farmaajo hooyadii aan ka warhayn oo carruurtiisi aan ka warhayn oo xaaskiisii yacni ay la joogto oo dadkiisi kale aan ka warhayn oo walaalihiis ay ka qaylinayaan baraha bulshada oo walaalay raalli ah walaashi inuu dhan madaxa u salaaxo madaxa ka dhunkada walaashiis garan waayey oo qayladeeda aamusin waayey oo mareexaan weyne gooyey oo reer dalal ugaas diini gooyey oo reer diini gooyey mareexaan weyne gooyey sada gooyey oo daarood gooyey miyaad hawiyow cayrsanaysaan caawa walaalayaal war iska ilaahay ka yaab war wallaahi mid idiin dhaama in idinaa helayn war cumar cabdirashiidow ilaahay ka yaab war anoo nafta iga sii baxaysaan dardaarankaas diraya walaalow cumar cabdirashiidow ilaahay ka baq war ilaahay ka yaaba war kulligiin ilaahay ka yaaba war cabdiwligaasow ilaahay ka yaab war lacagta imaaraadka iyo laaluushka iyo xaaraanta badaha iyo dekadaha ad gadaysaan ilaahay ka yaab war dowlad dhist war garsoor caadila samaysta war ku mashquula horumarinta tacliinta waxbarashada beeraha kalluumaysiga dib u heshiisiinta alla kacabsiga war ummadda waxaa ku mashquuliyey war markaad midoodaan walaalihiin somaliland u imaada oo la fariista oo ka garbaxa idinkoo midaysan oo gacmaha is haysta 150 ha u kala bixine walaalihiin u imaada la heshiiye
dhibkooda dhagaysta ka raaligeliya xasuuqii aad u geysateen dhibkii aad u geysateen barakicintii aad u geysateen u cudur daara markaas heshiis la gala dhagaysta dhibkooda waxay rabaan dhagaysta waxay ka baqayaan dhagaysta u cudur daara ragga waa walaalihiina waa idin jecel yihiin dhibkiina wuu dhib oo idin dhabaya dhibkiina raalli kama ahe ragga walaalihiin weeye in idin jecel yihiin laakiin idinkii baa Ethiopia in kala gogoys oo gabdhihiina kufsanaya ciidama iyaga idin ah ilaahay ka baqa subxaanahu watacaala midnimada ka shaqeeya ugu dambayn ilaahay u toobad keenno ربي أنو نقلنا سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علماء عامو إلهي أنو نقلنا سبحانه وتعالى نسعفنه ولا لونه أنا السعود دارنا أنا سعب أصدرنا سعير سقي يسقحن طيب سعوك شاق الشغل يسكدين أنا وسكستو أنا عريسنا هاي سكستو أنا حناقسنا هاي سكستو سعادة سحنون وهاي إيه هايو غير الرسول كريم صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة منك رقا the strong man is not the one who wrestles the man منك رقا لقده ما ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. The strong man is the one who controls his anger. ninka ragga waa ninka caradiisa celiya ninka iscontrola haddaad arki jirteen aniga qurbaha inta jooga markay aan dhib la ii geysto iska caaytama ama iska cantara baqash ku hadla dalkayga waa ku caafimaaday hargeysa waa ku caafimaaday aragtidii aan arkay dadkayga waa ku caafimaaday soo dhaweyntii iyo jacaylkii iyo maxabadii hargeysa layga muujiyay waa ku caafimaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin intaas in ka bad xigmad baan ka helay culimadii shuyuukhdii talooyinkii walaalahan saaka u dumisna aldoon iyo waaninahay ood maqlayseen khayr allah siiyo jazaahu allahu khayr odayaashii golihii guursada cid walba ay soo dhaweynaysay jazaakum allahu khayr walaalayaal waxaa weeye dhibka la ii geystayna aniga ogey wuxuu dhihi jiray ku caanbaxay labada buug mid bay gelin buugga adduun iyo midda aakhiro midkood haddii wax lagu yeeshane weligiis baan wax lagu leeya ma arkine ciddii wax u sheegata waa siin jiray haddii dib loo geystane iska cafin jiray iska cafin jiray iska cafin jiray iska cafin jiray والعافين عن الناس الله يحب المحسنين إلهي وحيد والكاظمين الغيظ كو عرض قرية أهل الجنة those who hide their anger who control it وإلهي جنوب بالشارعية رسول كان عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح عنك أوصني يا رسول الله give me advice أو messenger of Allah رسولك يا لويواني وحي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هارون عرضي دي وان قريه دول عدين بانكو بدلي عفس بانكو بدلي دان عاود انتنا وعفس دان داوعاني يقصو وين هذا وديسيبل aan noqdo dhiig igu furmo ama stroke igu furmana waa xafis wala lahay laakiin cods gumaysiga iska dhiciya gumaysiga la dirira wayaanada la dirira liiw boolis la dirira ciidamadooda la dirira qabiil walba koox walba degmo walba deegaan walba tuulo walba diida arab diida عجم ديدة بديهن برجينا دلكينا إلى الصدى زمالي وين قوليست الله يدعي السيء شرفكم نور هذا
soomaali kuma mashquulaya anigu maryam dhasaglaan u jeedaa horaala kayaata milalekh taariikhdii baan hayaa aniga maabkayga waa kaasaa maabkayga waa kaasaa dalkayga waa kaasaa soomaali weyn baan aaminsanahay cadowgeennu waa kuma buuggaa nin beesha isaaqa qoray taariikhdaana baraysa cadowgeennu waa kuma nin beesha isaaqa qoray cadowgeennu waa kuma cadowgeennu waa kuma taariikhdaana baraysa dhulkii awowgaa ninkii qaatay waa ninkaas cadowgaagu awowayaalkaa ninkay la dagaalameen kaas weeye cadowgaagu midka hadda doonaya badahaaga iyo birigaaga inuu qaato kaas weeye cadowgaagu midka ciidamadihiisa dhulkaaga ay joogaan kaas weeye cadowgaagu maabkaygu waa kaas khariidadaydoo taas cadowgayguna waa kuwaas dalkaygii dhacay badahaygii dhacay berigaygii dhacay boqorka shanta soomaaliya miskiinka alle United States of Greater Somalia ayuu aaminsan yahay taas qabiil uga horjeedo iyo koox uga horjeedo iyo degaan iyo maamul uga horjeedo ma jirto ha ka xanaaqin haddaad mawadani dhaba tahay haddaad soomaali dhab tahay haddaad damiir leedahay waxaa lagu dhahaa maabkaas Somali Peninsula aljaziiratu Soomaaliya waxaad gashaan librariyada Mareykanka qaybta waxaad gashaan maabiska soo qaata waxaa idiin soo baxaysaa Soomaali walaalayaal waa ka xumay walaal raalli ahaada hooyadii baa isoo wacday waa ka qariyay dhibkayga kama nixin ehelkay baa isoo wacay waa ka qariyay dhibkayga carruurtayda Hargeysa joogta ilmeynaysa waa ka qariyay dhibkayga uma sheegin ninka raggaa saasa lagu yaqaana qofka muuminka ah fidna wala lama noqdo walaalayaal alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ku gabagabaynayaa dad baa halkan waxay kusoo qorayaan bagax in lagu dila xaq weeye dadkaasi waa dadkii dhigyacabka aabayaalkooda ahaayeen waa dadkii aabayaalkood jabhadaha ahaayeen waa dadkii aabayaalkood geela dhici jireen waa dadkii xaaraanta ku soo koray waa kuwa xoogga ku haysta hadda dadka degaamada Soomaali weyn oo dhan xaaraanta ku koray weeye guryaha ku dhistay xaaraanta weeye kuwaas nin nasaba nin gob ah nin mu'min ah nin alla ka baqaya saas uma hadleen qof muslima oo marti ah oo ehelo dalkiisa iyo degaankiisa jooga ma dheheen sax laaya xera dila ma dheheen waa dadkii dhigyacabka ahaa weeye dhigyacabka weeye dadkii dhigyacabka ahaa baa haya inay waxaan leeyahay dadkaas xishooda dadka mu'miniinta ah dadka akhlaaqda leh waa kuwii soo dhaweeyey qabiil kastoo ay yihiin hawl mahad celinaya beesha Sacad Muuse oo si sharaf leh ii soo dhaweysay beesha Habar Yunis oo si sharaf leh ii soo dhaweysay hadda waxaan la joogaa oo aniga dhaawacayga dhayahaya daweynahaya yaa waa beesha ciida gale ilaahay khayr ha idin siiyo beesha ciida gale weeye hadda aniga dhaawacayga daweynahaya waa Habar Yunis waa Habar Jecelo waa Sacad Muuse waa qabiiladii oo dhan baa i daaweynahaya Habar Yunis Sacad Muuse Habar Jecelo Habar Awal Arab haddii ilaahay kudmahayo qabiiladii oo dhan yani baa i daaweynahaya walaalahay saas batay aan idin ammaanahayo yani walaalo aan dhihi karo kooban laakiin ilaa hadda dad odayaala ama akhyaara ama ganacsata ama xukuumadda oo aniga arrintaydii ka muujiyey inay ka xun yihiin ma jiro laakiin wax yar walaal ma kici karo ma jiraan bal in rag munaafiqiina qurbaha ay ka soo wacyan leeyihiin ninkii qabta aniga sakaraadka aad ilaahay kudmahay aniga hadda ceeb asturooyo waa la idaaweeyey waa la habeeyey waa la fiicnay waa la qurxiyey waxaan u leeyahay
fidnada lama bumbuniyo, waa la qariyaa, ceebtaa la qariyaa, waa la qariyaa ceebta intaan qarin karo waa qarinahayaa. kuway ceyrsanayana waxaan leeyahay waad ii jeedaan, odayaasha iyo culamaa udiinka iyo cid walba waxaan leeyahay allah idin sharfo. kuwii dhibka ii geystay halala xisaabtamo, anigana ha layga garbaxo, cayrsigana ha layga daayo, dulmiga muslimiinta la cayrsanayana ha layska daayo. dalku waana deeqaa, bad iyo biri naga badan, nabad iyo walaalnimo iyo islaamnimo iyo cadaalad ha lagu noolaado. baqdinta iyo cayrsigana ha la joojiyo, cagajuglaynta iyo qoriga iyo ceejada iyo xabiska iyo xariggana ha la joojiyo. ha lagu noolaado dulqaad, isxurmayn, karaamo. qof kastoo muwaadina karaamo u leeyahay, muslima walaalkaa ah oo soomaaliyeed. taasaan idin leeyahay. haddii taa la waayo kulligan waa baaba'aynaa. shalayna waa baaba'anay, maantana waa baaba'aynaa. waxaan ku gabagabaynahayaa kuwa yani warxamatashiilka walaala wax yar ka bacay, wax yar waay walaala. waxaan ku gabagabaynahayaa aan tarabaqashkii malayacni kuwa ku hadlaya, waladiina hum cani lagwi macridoon. halaga jeesto ilaahay dartina ha loogu sabro dhibka. watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلين.